isbarbardhigga waxqabadka labadii sano ee ugu horeysay ee dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo midda madaxweyne farmaajo. Amniga labadii sano ee ugu horeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la dhisay wasaaradda gaashaandhigga, xerada tababarka nacnac iyo golaha amniga qaranka Soomaaliyeed. Barnaamijka High Level Detection Program oo xilligaas la hirgeliyay waxaa isu soo dhiibay 70 sargaal oo ay ku jireen Xasan Daahir Aweys iyo Atam, waxaana Muqdisho laga qaaday 60 isbaaro. muddadii labadii sano ee ugu horeysay dowladda xasan sheekh maxamuud waxaa min hal jeer la bedelay taliyayaasha NISA, xoogga dalka, booliska iyo xataa wasiirka gaashaandhigga. NISA Axmed Fiqi oo lagu bedelay Bashiir, xoogga dalka Generaal Cabdiqaadir Diini oo lagu bedelay Daahir Aadan Cilmi, booliska Cabdixakiin Daahir Saacid iyo wasiirka gaashaandhigga oo la dhacay xukuumaddii Shirdoon. dowladda madaxweyne farmaajo labada sano ee ay joogtay waxaa ka tagtay 3 taliye sirdoon: Cabdullaahi Gaafow Maxamuud, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe iyo Xuseen Cusmaan Xuseen. waxaa jooga taliyihii afraad ee xoogga dalka Generaal Maxamed Aadan Axmed Buud, Generaal Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid, Sareeya Gaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod iyo Sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe. waxaa jooga oo kale booliska taliyihii afraad Generaal Sheekh Xasan Xaamud, Cabdixakiin Daahir Siciid Saacid, Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax iyo Bashiir Cabdi Maxamed. halka abaanduulaha xoogga dalka iyo asluubta ay la joogaan mid waliba kii saddexaad. labadii sano ee ugu horeysay dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa al-shabaab laga qabsaday gobollo badan. galmudug waxaa ka mid ahaa Ceel Buur, Wabxo. Shabeellaha dhexe waxaa ka mid ahaa Jowhar, Mahadaay iyo Balcad. Hiiraan waxaa ka mid ahaa Buule Berde, Maxaas, Jalalaqsi iyo meelo kale. Jubbaland waxaa al-shabaab laga saaray Gado, Baardheere, Barwaaqo, halka Jubbada Hoose laga saaray Kismaayo, Buule Guduud, Mangabow, Baarsanguuni iyo meelo kale. Koonfur Galbeed gobolka Baay waxaa laga saaray Diinsoor, halka gobolka Bakool laga qabsaday Xudur, Waajid, Tiyaglow iyo Rabdhuure. Shabeellada Hoose, Wallaweyn, Baraawe, Marka iyo Qoryooley. labada sano ee madaxweyne farmaajo lama qaadin dagaal weyn. al-shabaab waxa ay dib u qabsatay magaalooyin badan, laakiin dowladdu waxa ay furtay jidadka xeebta ah ee Muqdisho ilaa Marka. isla jidkaas labadii bil ee ugu dambeysay waxaa lagu dilay taliyayaashii isaga kala dambeeyay ee guutada 12 Abriil kadib booqashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud Mareykanka January 17, 2013. waxaa la qafiifiyay cunaqabataynta hubka ah. weliba Obama ayaa saxiixay in taageero military la siiyo Soomaaliya Abriil 1, 2013. dowladda xasan sheekh maxamuud waxa ay heshiis la gashay Turkiga iyo Talyaaniga in ay tababaro dibadeed siiyaan saraakiisha ciidamada Soomaaliya. waxay Turkiga kula heshiisay in la dhiso xero weyn oo lagu tababaro ciidamada Watan Jazeera. waxay kaloo ku guuleysatay in ciidamadii lagu tababari jiray Uganda tababarkooda loo soo wareejiyo Muqdisho. intii uu joogay madaxweyne farmaajo, Mareykanka waxay qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka ka joojiyeen saanadii military iyo mushaarkii. waxaa xusid mudan in Trump uu saxiixay kordhinta duqeymo ka dhan ah al-shabaab. waxaa sidoo kale uu Soomaaliya ku daray dalalka ka mamnuuca ah inay u safraan Mareykanka. dhaqaalaha labadii sano ee ugu horeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa laga shaqaysiiyay bangiga dhexe. waxa uu sameeyay miisaaniyadii ugu horeysay burburkii Soomaaliya kadib oo gaaraysa 114,355,852, isaga oo golaha shacabka hor keenay xisaab xirka sanad walba. madaxweyne xasan markii uu yimid waxa uu kobaca dhaqaalaha dalka ka qaaday 2012 1.2, 1.4 oo 2013 ah iyo 0.4 oo 2014 ah. waxaa xusid mudan in uu 2016 gaaray 4.4. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu dalka qabsaday isaga oo kobaca dhaqaaluhu yahay 4.4, laakiin labadii sano ee uu joogay hoos u dhac ayuu sameeyay oo waxa uu gaaray 2017 2.3, 2018 3.1. xilligii xasan sheekh maxamuud waxaa dalka maalgashi ku sameysay Turkiga, Faafoori oo garoonka ah iyo Albayraq oo dekada ah. waxaa sahmin loo ogolaaday Som Oil and Gas. intii uu madaxweyne farmaajo joogay ma jirin maalgashi toos ah. labadii sano ee ugu horeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud shaqaale dowladeed oo rasmi ah ayaa la diiwaan geliyay. 3,000 ka badan ayaa la qoray ilaa ay gaareen 5,526 shaqaale, iyada oo mushaarka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka lagu bixin jiray grade. halka madaxweyne farmaajo aanu weli qaadan wax shaqaale rasmi ah oo tirada rasmiga ah waa sidii hore. dayn cafinta dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay dalka dib ugu soo celisay hay'adda lacagta adduunka IMF
taasoo ay la gashay heshiiskii Article 5 oo suurageliyay in IMF ay Soomaaliya ka saxiixato heshiisyadii SMB iyo deyn cafiska. Waxay sidoo kale dib ugu soo celisay Soomaaliya kaalintii ay ku lahayd iskaashiga Yurub, Afrika, Caribbean, Pacific, EU iyo ACP, kaasi oo suurageliyay in Soomaaliya ay caawinaad toos ah ka hesho EU. waxay ku guuleysatay barnaamijka New Deal kaasi oo wadada u furay inay Soomaaliya iyadu keensato mashaariicda horumarineed. Madaxweyne Farmaajo waxa uu sii waday barnaamijka SMB iyo xiriirka hay'adda IMF-ta iyo Bangiga Adduunka. Dhismaha hay'adaha dawladda labadii sano ee ugu dambeysay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu saxiixay sharciyo qayb ka ah dhismaha hay'adaha dawliga ah sida sharciga degmooyinka iyo midka gobolada, sharciga golaha adeega garsoorka, dhismaha guddiga dib u eegista dastuurka, sharciga shaqada wasaaradda arrimaha dibadda, sharciga kalluumaysiga badaha Soomaaliya, sharciga dhisidda guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, sharciga bangiga horumarinta iyo dib u dhiska iyo shuruuc kale. Halka Madaxweyne Farmaajo ay ugu muhiimsanayd sharciyada isgaarsiinta iyo naafada. Xilligii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la sameeyay tirakoob sahankan oo ay sameysay wasaaradda qorsheynta intii u dhaxaysay 2013-2014 ayaa lagu sheegay in qiyaasta dadka Soomaaliyeed ay yihiin 12,316,895. La shaqeynta baarlamaanka labadii sano ee ugu horeysay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu saxiixay 9 sharci oo ka soo gudubtay golaha shacabka, halka Madaxweyne Farmaajo saxiixay 4 sharci. sidoo kalena ma jirin khilaaf soo kala dhaxgalay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoonka. waxaa 4 sano la dhameystay gudoomiye Jawaari, halka Madaxweyne Farmaajo ay iskhilaafeen isaga iyo gudoomiyaha golaha shacabka, taasi oo keentay inuu iscasilo Mr. Jawaari. midnimada dalka labadii sano ee ugu horeysay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa meel fiican gaaray wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland laga bilaabo 13 Abriil 2013 markaas oo Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxweyne Siilaanyo isku arkeen Turkiga, iyo March 2015 waxa ay labada dhinac is hor fariisteen 7 jeer oo ka dhacday Turkiga iyo Djibouti. intii uu Madaxweyne Farmaajo xafiiska joogay ma jirin wax wada hadal ah, waxaase dhacday in wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya uu soo saaro warqad deeq bixiyayaasha looga codsanayay in aan dib loo cusboonaysiin macmiilka gaarka ah ee beesha caalamku siiso Somaliland sida ku xusan heshiiska New Deal. dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Agost 28-2014 gudbisay dacwad ka dhana Kenya maxkamadda cadaaladda adduunka ee hoos tagta qaramada midoobay. Farmaajo iyo maamulkiisa waa ay sii wadeen arrimaha gudaha labada sano ee Madaxweyne Farmaajo. waxyaabaha lagu amaanay waxaa kamid ah safarkii uu ku tagay Janaayo 2018 dowlad goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Galmudug. xiriirka caalamiga ah January 17 2013 kadib safarka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Mareykanka, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii ugu horeysay ay aqoonsatay dowladdiisa. xiriirka dalalka Carabta iyo Khaliijka ayaa aad u fiicnaa. Iiraan iyo faafinta madhabka Shiicada ayaa la dagaalamay, laakiin maamulka Farmaajo waxaa xumaaday xiriirka uu la leeyahay Sacuudiga iyo Imaaraadka. Afrika waxa aad u xooganaa xiriirka Afrika. sidoo kale Muqdisho waxaa ka dhacay shirka wasiirada arrimaha dibadda IGAD. isla labada sano waxaan ku biirnay ururka maamula isgaarsiinta satellaydyada adduunka iyo dib u soo noqoshada xubinnimadeena baarlamaanka. xiriirka beesha caalamka iyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aad u fiicnaa marka la barbar dhigo Madaxweyne Farmaajo oo maamulkiisu uu ceyriyay wakiilkii qaramada midoobay u fadhiyay Soomaaliya. sidoo kale waxaa xusid mudan in ay dacweeyeen safaarado dhowr ah oo ka howlgala Muqdisho. arinta ugu muhiimsan ee labada sano uu qabtay Madaxweyne Farmaajo waa heshiiska isdhexgalka Geeska Afrika. arrinka kale ee Madaxweyne Farmaajo lagu amaanay waa in uu wali la joogo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay dowladdiisa, halka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay iskhilaafeen ra'iisul wasaarihiisa. waxaa xusid mudan in xukuumaddu la dhacday ra'iisul wasaare Shirdoon ay ahayd 10 wasiir, halka isbeddelka wasiirada ee xukuumadda Khayre ay gaareen 20 wasiir. safarada dibadda Madaxweyne Farmaajo waxa uu markii uu musharaxa ahaa dhaleeceeyay safarada dibadda ee hoggaanka dalka, laakiin isbarbardhigga Goobjoog News waxa lagu ogaaday in Farmaajo uu 10 safar ka badan yahay Xasan Sheekh Maxamuud, isaga oo labadii sano ee tagtay galay 40 safar oo dibadda ah. gabagabo isbarbardhigga labada sano ah oo aan faahfaahintiisa cid walba la wadaagi karno, waxaa soo baxday in maamulka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka fiicnaa midka Farmaajo marka loo eego amniga, kobaca dhaqaalaha, dhismaha hay'adaha dawliga ah iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Cali Aadan Muumin, Goobjoog.